horta madaxweyne maanta wuxuu baahay qalinkaaga xilka qaadistu inuu degdego ka magacaabistu inuu degdego kaad aragto inuu dalka iyo qaranka ciilo ciirayo waa inaad ku dedejisaa kalsoonida isku qabaana waa inay meesha ka baxdaa oo ninku isleeyay walgaaba madaxweynuhu ku heri maayo maxamed kaa waxaan leeyahay mar haddii aad baashirkaagii dub u dhigtay waad guulaysatay in niman cumaamada sitaa marba meel soo fadhiistaan oo ummaddii iyo dalkii kala dilaan dowlad ku noqon mayno ninka habaryoonise dambe u jawaaba nin dowladdaa ka camanaya wuu qaldan yahay ha u jawaabina haddii aad sheekh xidho berbere iyo hargeysiya burca isku xidhmi waddadu way kaaf xidhmi haddaad caabudla xidho oo belegobadlaa furmi berberina waxaad ka dhigtay faran waxaad leeda kaale iga qaada caqligaasi meesha ma yaalo warkaa waxaan leeyahay waaryaadheen habar awalay dad goba ahaydeen dad sharaf la ahaydeen waxaan doonaya inaan dhowr qodob oo kooban aan yaro taabto qodobka koowaad waxaan doonaya inaan xaaladda guud ee dalka aan yar taabto runtii alxamdulilah dee waynagii doorasho soo gallay doorashadiina waynu ka soo baxnay si wanaagsan bay inoogu dhammaatay waxaana dalku maraya maasha allah dee meeshii ugu wacnayd inkastoo xaalado amni darro ay dadku ka yaro dayrinayaan oo dhacdooyin ay dhacdhacayaan aan hore dalka looga baran marka anigu waxbaa ii muuqda waxaa ii muuqda oo aniga aragtidayda runtii gaaban aan arkaa in dowladdii ay buddhigga u ahaayeen nimankan la yidhahdo beesha reer sheekh isxaaq ama beesha dhexe inay dowladnimadii ay si khaldan u fahmeen inay dowladnimadii u fahmeen wuxuun wax laga cuno uunaan micno kale lahayn inay dowladnimadii micnaheedii u fahmeen inaanay wax miisaana oo kale aanay ugu fadhiyin in marba reer yimaado deedna reerkaa la buquujiyo oo lagu yidhahdo reer baa fadhiya oo ninkaa meeshaa fadhiya reer lagu shaambadeeyo la buquujiyo taasina maaha tii dalkan iyo wixii dalkan lagu dhisay maaha raggii dalkan soo dhisay intii caqliga badnayd ee waxgaradka ahayd ee aqoonyaanka ahayd majority waa tageen imankana waxaad moodaa dadkan hadhay iyo qaabkan imanka dadka wax loogu sheegayo iyo siyaasiyiinta waaweyn xitaa qaabka wax ugu dhigayaan inay tahay wax reer marba lagu caburiyo oo lagu banjariyo oo aan la ogolaanin inay waxaas dhaqaaqaan marka anigu runtii somalilan buddhiggeedu waa reer sheekh isxaaq cidda dhibta ku haysaana waa reer sheekh isxaaq siday wax u wadaana waxa weeye inaanay dowladnimada fahamsanayn meeshan inay dowlad noqoto aanay doonayn inay dad noqdaan aanay doonayn iyadoo hareeraha waxa ka xigoo dhami aanay ogolayn inay wax u dhaqaaqaan haddii dowladnimadaasi ay inaga dunto oo ay dunto waxay ogaataan boqolaalka sane soo socda inaynan kacayn inanka inantiisa inan iyo inankii iyo rag iyo dumar waxaa la ogaan doonaa maalin dambe ayaa farta dhexda laga qaniini doonaa oo la odhan doonaa maalintii maynu waxayna hagaajisano marka qodobka aan arrintaa uga jeedaa waxaa weeye waryaadheen dowladnimo ku noqon mayno sida socota in niman cumaamada sitaa marba meel soo fadhiistaan oo ummaddii iyo dalkii kala dilaan dowlad ku noqon mayno inaynu arrin yar oo xaadisa ah oo dhacday xallili kari weynana dowlad ku noqon mayno marka horta qodobka waxaan leeyahay waryaadheen waddadaa haddaynaan bedelin dowladnimo jiri mayso waxgaradkan weliba leeyahay waxgaradka iyo dadka aqoonyahankow war bal arrintaa hoos u eega berri bay soo noqon doontaa waxaana way soo socotaa iminka waxbaa soo muuqmuuqda qodobkaa intaasaan leeyahay qodob kale marka cidi kursiga timaado dee reer baa lagu shaambadeeya runtii niman habaryoonisa oo ka jawaabay raggaa meydkee tallaagadda ku jira arrinkooda runtii anugu kuma farxin manay ahayn iyagu inay dadka dowladnimada ka xigsadaanoo iyagu jawaabaan jawaab male maanta laakiin garxajis maanta waxaa hor yaalla oo ay hadday wax tarayaan madaxweynaha hor taalla inay ka shaqeeyaan habar awal iyo garxajis siduu isugu soo dhawaanlaan taasaa meesha taalla laakiin inuu nin habaryoonisi nin kale u jawaabo kii kalena loo soo jawaabo waxa weye wax sharafa iyo waxaad u kordhisay madaxweynaha iyo wax dowladnimada aad ku soo kordhisay midna ma jirto
ninka habar yoonise dambe u jawaaba nin dowladda ka camanaya uu qaldan yahay ha u jawaabina haddaad wax qabanaysaan habar walla fadhiista waxay tabanayaan kala hadla gar iyo gardarraba waxaan eeli ku yaqaanay laandheeranimo waxaan eeli ku yaqaanay raganimo waxaan eeli ku yaqaanay dhiiranaan oo horta nimanka hor fadhiisto xaal siiyo yaan eeli kuma lahaan xaalka bixiyo fadhiista oo nimankaa soo dhaweeye wallaahi kuraas la bixiyaa keeni mayso kuraas la bixiyaa sii dayn mayso arrintan fududayn mayso laakiin idinka oo la fadhiisto dhaqan ula fadhiistaa oo gar iyo gardarraba xaal bixiya oo dejiya oo walaaleeya oo dadka isu soo jiida waa nimankii 30 sano ka maqnaa waxa la doonay wax cusub inaad dalka ku soo kordhisaan anagu markii hore waxaan filayay ina qolada habar wal iyo habar jeceliya dadka kale waa oran lahayd fadhiista amarka iyagu suga taasna inta qolada garxajis qolada habar wal kelmad baan leeyahay waxaan leeyahay wal maadeerayaal dowladda Soomaaliland ilaa intay jirtay mar qura madaxtooyada kama inaan bixin taa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro idinka ayaa gunta ugu jira kamana manidin oo waa ku jirtaan ma garad waa ilmaadreeyal dalka intii ugu istiraatiijiyeen buu Ilaahay idin dhiga Soomaaliland in qurux badan oo wanaagsan oo isku rakiban oo quran daahirana oo Ilaahay suuqiin soo dhaweeyay ayuu Ilaahay idin dajiyay meesha Ilaahay idin dajiyay ina ku mahadnaqdaan baayada ina dadka ugu faantaan ma yahayn nin baan dhageysanay Ilaa Caabudlaan xili waxaan xili sheekh baan xili berberaan xili wadaad xidho sheekhna wada kala loo soo weligeed sheekh lama xidhin 6 saacadood bay xidhneen maalintii dhaweyd weligeed sheekh lama xidhin waana magaaladii madaxweynuhu ka soo jeeday waa magaaladii deegaanaan madaxweynuhu ka soo jeeday weligeed lama xidhin haddii aad sheekh xidho berbere iyo hargeysa burca isku xidhmi wadad way kaaf xidhmi haddaad caabudla xidho oo bulgubadla furmi berberina waxaad ka dhigtay faran waxaad leedahay kaale iga qaada caqligaasi meesha ma yaalo warkaa waxaan leeyahay waaryaadheen habar walay dad gobahaydeen dad sharaf la ahaydeen udub dhaxaadkii dalkani ku taagnaaba ahaydeen waar qaabka imanka u socoto waxba idinkana idinku socon maayaan qolyaha iyaga barigaana baasha in la yara baandheeyo mar waanu u baahanay laakiin baandhadaas waxay keenaysaa in meeshu dunto anagu taasaanu ilaalinayna yaan meeshu inaga dumin cidda ka dumaysaa hadday duntana waa habar awal cidda manfaca ugu fara badan 90% waa habar awal ilmaad reer manfaca ilaashada magaca ilaashada karaamada ilaashada dhangagaalaha hadalka iska tuurayana iska ilaaliya oo waliba qabta oo arrinta dejiya habar awal intaasaan leeyo ku fogaan ma habar jecel waxaan leeyahay mahadsantiino maalintii dhaweyd arrimihii dhacay waa ka aamusteen si wacan waa yeesheen waana xaqna walaayda waana idinku ammaanaya anigu waan ku hambalyeynaya way hadhow dhex ma noqon kartaan taa dhex gashaan imanka ma dhex ma noqon kartaan boqorka yara taabto boqorkuna waxaan maleeyaa shararkii dambe iyo hawlaha dambe aan waxba ka ogeyn marka boqorkana waxaan leeyahay boqor daasha deji oday baa tahay oday boqor geeska baa tahay boqor Soomaaliland baa tahay boqor reer Isaaq baa tahay cagta u dhig baasha deganaanshiyo kuwa deji boqorka baasha qodobka aan ugu daray habar jecel waxa weey halka waxa ka soo socda 3 hawlo badan bay naga soo socda bari arinta bari naga soo socota habar jeceloy hawsheedu ma sahlana 3 qoodhood iyo xorodoodba ku jabtay ayaa inoo taala markuu nabarku inagu dhacay inaan baraarugina hal tashado taladaasna habar jecel u dirayaayo 3 qoodhood iyo xorodoodba ku jabaysa halistaana warbaahinta ka sheegi maayo laakiin golayaashii tagi laakiin tala inoo taale hal tashado arinta bari naga soo socota laga tashado go'aanana laga soo qaato waxa laga diyaar garoob madaxweynahan talooyinka kooban halkan ka siinaya waxa keenay horta madaxweynaha in warbaahinta talooyin laga siiyo boos maad samaysan warka lagu soo mariyo oo waraaqo kugu soo dhacay xogta ku heshid maalin dadweyne maad samaynin oo umadu kugu timaado sanadad maraysa waa intii shaqadu xidhmi lahayd bahasha la rakibi lahaa weey wali xatalaan maalin dadweyne ma jiro oo dadkii wasaas bay ku soo eegayaan taasaa keentay warbaahinta lagu soo mariyo wixii talaa horta madaxweyne dawladda aad dhistay imanka horta dub ugu noqo waa qodob dawladda aad leedahay
oo keligaa leedahay oo canaanteeda leedahay oo adigu aanad qofna ku canaananay hebel baa qof ii keenay hebel baa ii riixay hebel baa waxila lahaa mid baan shuraakowni midna aanu jirin horta dowladdaa dhiso eedeeda iyo godobteeda iyo wanaaggeeda iyo horumarkeeda adaa yeelanaya horta dowladdaa dhiso waa qodob hay-adaha amnigu diblomaasiyadda waa ka mamnuuc arrimaha guduhu iyo amnigu waa ka mamnuuc diblomaasiyadda waa ka mamnuuc ma garad markaa arrimaha diblomaasiyad uma baahna amnigu wuxuu u baahan yahay baawar amnigu wuxuu u baahan yahay gacan adag amnigu masaalix ma aqbali karo maba aqbali karo maslaxad amnigu wuxuu u baahan yahay gacan adag oo dalka ku hayso haddii arrimaha guduhu kaa burburaan oo guduhu burburo dabadna wax kuu tari mayso arrintaasina iminka dilalkaa qorshe la sheegayana waxaa laga qabto si cilmiyeysan waxaa looga qabto dalkuna hay-ado sirdoon buu u baahan yahay weliba mid quroo ma baahna maraykanku 17 hay-adood amni oo sirdoon buu leeyahy oo midba wax qaabilsan yahay madaxtooyada daahir yaala wuxuu lahaa sirdoon u gaara waxa burburiyo dowladdii kulmiye sirdoonkana sidii kulmiye u burburiyey ilaa yomina hada u burbursan yahay haddii sirdoon la waayo oo xog la waayo oo hay-adda ka hortagga dembiyadu shaqayn weydo wax laala wax kuu dhaqaaqaya ma jiraan hay-adda ka hortagga dembiyadu waa waxa madaxweynuhu uu ku tala qaatay wey oo nin waliba wuxuu aaminsan qalinka cirro inaanu degdegin maanta wuxuu u baahan yahay qalinkaaga xilka qaadistu inuu degdego ka magacaabistu inuu degdego kaad aragto inuu dalka iyo qaranka cilo ciirayo waa inaad ku dedejisaa aad meesha ka saarta kalsoonida isku qabaanna waa inay meesha ka baxdaa uu ninku isleeyahay weligaaba madaxweynuhu ku heri maayo taana meesha ka saar ta kale 10 madaxweyne waxaad samaysay 10 la taliye ayaa kula taliya laakiin 10 la taliye 8 baa reer Hargeysa shanna waa isku reer 8 reer Hargeysa shan isku reeri bayle iyo baar baa taraxa berberay wixii ka xiga hal la taliye kuma jiro markaa dowladdii dhaxana madaxweyne waxay u badatay Hargeysa oo majority Hargeysa wasiiradii ugu mudnaay oo dhami Hargeysa fadhiyaan waa reer Hargeysa barigu wuu cabanaya cabasho badanna way taala madaxweyne markaa balbahasha dub ugu noqo miisaankana hagaaji haddii miisaanku ciiro qof kale mid kale ka tagaya meeshaad nin ka qaadanayso nin baad kaga tagaysaa markaa madaxweyne waxaan ku odhan lahaa dowladda dub u rakib cadaalad haddaad ku shaqaynayso cadaaladda qaado cidna ha u burinin cidna ha soo dhawaysanin cadaaladda dadka wada deeqda laakiin ma deeqdo maxaan ku dhahday waxa la yiraahdo qof baan qancinaya wallahi haddaad tiraahdo ridda naas qaayatun la tudrak haddaad dadka raali geli waa qaayo aanad gaadhin weligaa halkana kelmad baan oonaya maxamed kaa waxa leeyahay mar haddii aad baa shirkaagii dub u dhigtay waad guulaysatay